بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. meel walba dunida aad ka joogtaan salaantaas qiimaha iyo qaayaha leh ee dadka muslimiinta ay isku salaamaan ayaan hawada sare idiin soo marsiinayaa. halka aad naga daawanayso waa channelka Macalin Muuse official channel. aniguna magacaygu waa Macalin Muuse. haddii ay tahay markii kuugu horeysay ahlan wa sahlan. haddii aad hore ii daawan jirtayna barnaamijka noo like garay. haddii aad ku cusub tahayna channelka subscribe noo saar si aan u gaarnaa inta bisha ka haray insha Allah taala 20 subscriber insha Allah 20,000 oo subscribe aan ka wadaa. barnaamijkeena ama mawduuceena maanta waxa uu ku saabsan yahay waxa aan ka hadlaynaa waxa batay xanuunadii batay. ilaahay subhanahu wa ta'ala umadaha caafiyo waa la wada xanuunsan yahay waa la wada bukaa waa la wada jiran yahay. qofka المعقود عن زوجته نينكا مركا لغا سحرو حاسكيسا او u tagi kari waayo iyo dawadiisa ayaan insha Allah taala ku soo koobi doonaa muddo gaaban ayaan insha Allah kaga hadli doonaa. gabadha waxa laga yaabaa ninka rag ah in xaaskiisa laga xiro ama dariiq sixir looga xiro ama dariiq kale looga xiro ama gabadha in ninkeeda laga xiro iyada laga xiro. waxa laga yaabaa ninka inuu laba xas qabo oo mid kamid ah ay u furantahay mid kamidana ay u xirantahay. haddaba marka الربط xirashadu maxay tahay ninkan xaaskiisa marka laga xiro maxaa laga wadaa maxaa loo la jeedaa. الربطga waxa waaye ninka ragga ah ee siman abuuristiisuna ay siman tahay ee aan xanuunsaneen inuu ka caajisaa inuu xaaskiisa u tagaa. waa nin ilaahay abuuristiisu simay dhameystiray oo wax cudur ah iyo cilad ah aanan qabin haddana saasay tahay laga culays iyo caajis laga geliyay inuu u taga xaaskiisa ayaa waxaa la yiraahdaa الربط عن زوجته. haddii aan rabno marka inaan sii guda galno ama aan sii baarbaarno marka ugu horeyso waa in aynu ogaanaa in Allah la yastahi min al-haqq waxaan wax keeni karo. sida la ogsoon yahay xubinka taranka ee ninka ragga ah waxa uu ka kooban yahay waa qidca min laxm waa gabal kamid ah hilib oo mataati ah oo aad u jilcan waaye. haddii dhiigga uu isugu aruuro waxa weeyaan xubinkaasi waa uu taagmaya halka marka uu dhiigga uu dib u noqdo xubinka tankan uu dib u noqonayo uu isku aruurayo isaga dhan. طيب اوكي saddex marxalad ayuu qofka bani aadamka ah marka marxaladda saddex marxaladood ayaa jirto qofka dareemihiisu ay ku kacayaan. muhiim waa inaan ogaanaa kow midda ugu horeyso waxa waaye qofka marka uu sameynayo istimtaac marka uu la raaxeysanayo oo kale zawjadiisa uu la raaxeysanayo oo kale markaas waxa weeyaan dhiigga ayaa waxa isugu soo aruuraya xiniyaha dhiigga ayaa waxa uu gudbinaya hormoonka madaxa mataqaana ee xubinka taranka ayuu gudbinaya halkaas ayaana waxa ka dhalanaya mataqaana qofka inuu dareemihiisu ay kacaan. marka nooc kale waxa jira isagana al-ithara al-jinsiyya jinsiga ama waxa loo yaqaan sexiga qofka in uu ay kicinayso marka maskaxda qofka uu ku fikiro markuu arintaas uu ku fikiro ninka inuu galmo uu sameeyo ama sex uu sameeyo oo waxaas oo kale uu ku fikiro inuu xubinka tarankaana markaasina uu istaagayo. marka sidee marka uu dhici kartaa ninka ragga ah in laga xiro xaaskiisa oo uu mataqaanay wax dareemaha ama kacsiga uu ka waaya arintaas iyada waxay ku dhici kartaa shaytaanka ayaa waxa uu markas ka dhiganaya oo uu ka dagaaya ninka maskaxdiisa ayuu dagaaya waliba gaar ahaan wuxuu dagaaya meesha jinsiga ama qofka marka uu dareemo aatharu jinsiyya marka uu dareemo qofka jinsiga halkii maskaxdii ay ku fikir lahayd ayaa waxa dagaaya shaydaan ayaa dagaaya. shaydaankaas marka waxa uu u diraya ishaaro ayuu wuxuu u diraya xubinka taranka ah iyo xubnahaas uu tiraya xubnaha taranka ee ku saleysan inay mataqaanay ay la jaan qaadaan arimaha jinsiga ay la jaan qaadaan. kadibna si caadi ah ayay waxay u sameynayaan xarako xubnihii taranka way shaqeynayaan ninka xaaskiisa waa uu tagi karaa wax walba uu sameyn karaa laakiin marka uu xaaskiisa u dhawaado oo uu isiraado mataqaanay markaan Ilaahay xaajidaada waa gudan kartaa markaas ayaa shaydaanka waxa uu kharibaya oo uu catilaya oo haleynaya min markas al-ithara ila markaskii uu jooga maskaxdii uu jooga qofkan uu kacsigii wixii uu ku dareemayo jooga waa uu ka xiraya marka wuxuu ku sameynaya halkaas uu ka joojinaya
وعلادين علادو كأبورة كسمينا هل كاس مركب حكينيسو فتتوقف إشارة دي أمرك استاجيس إشارة دي قد بنيسي قف كان إنه دريمو كعسي وحس إنه دريمو أيا هل كاس كو استاجيسو حبين كترن كسيداسي أيو مركب ودعايا مركب وسيداسو كخشوعا يعني ديجيا ماشي كبحايو ديجي مركب وكبحانه سيداسو كهرايا المهم marka waxa arkaysa marka qofka ninka ragga ah ee tabiiciga ah si caadi ah tabiici u ah marka uu xaaskiisa la fara ciyaarayo oo la baashaalayo waxaad arkaysaa in uu xubinkiisa taranka uu istaagayo marka uu u dhawaado uu istiraad xaajidaada ka gudane waxaad arkaysaa xubinka taranka inuu dib ugu noqonayo sababtuna waxa weeyaan shaydaanka ayaa waxa uu markas uu yahay oo uu degan yahay maskaxdu ka degan yahay halkaas ayuu ka harabada marna ku shidaya marna ku diminaya mararka qaarkood waxa arkaysaa nin baa wuxuu leeyahay laba xaas ninka wax cilad ma qabo cudur ma qabo laba xaas oo qaba xaaskiisa kale si toos oo ugu tagi kara tanna ma u tagi karo waa laga xiray waa ka xirantahay way ka xirantahay xabad midaan kaliya ayaa laga xiray maxaa yeelay shaytaanka sixirka wato ayaa waxa uu catilay oo uu haleeyay markaas oo kale markaska loo yaqaano markasul ithara jinsiya waa markaska uu qofka ku kacayo jinsiga ama inuu mataqaanayo dareemaha kacsiga dareemaha kacsiga marka uu dhawaado maxaa yeelay shaydaankaasi kaliya waxa loo xil saaray oo lagu kalifay gabadhaani inuu ka xiro gabar kale shaqo ma kulan isaga tan oo kaliya inuu ka xiro loo xil saaray sidoo kale waxa la mid ah gabadha in iyadana ninkeeda laga xiro waa la mid halka ninka uu maray oo kale maraysa gabadha maskaxda ayuu shaydaanka ka dagayaa sidoo kale markii ay kacsi iyo wax ay dareento ayaa waxa la gelinayaa laga dhigayaa baarid ayaa laga dhigayaa aad ayaa mataqaanaa loo baarid marka laakiin gabdhuhu way ka badan yihiin ragga gabdhaha waxaa ka mid ah 5 nooc ay ku imaadaan gabdhaha waxaa ka mid ah nooca koowaad rabtul manac gabadha inay iska kaadiido iyadoon ogeyn oo mataqaanaa raalli ka ahayn ayay ku diidaysaa waxa waaye rabtul manac waxa la yiraahdaa gabadha ayaa waxa ay isku dayaysaa ninkeeda inuu u tago in ay u diido maxaa yeelay waxay sameynaysaa oo kale lugaheedii isku dhajinaysaa ninka dhanba ma rabtabo macnaha ninkeeda wuu rabaa iyadiyaan rabin rabitaan ma jira xaggeeda marka waxay sameynaysaa si uusan ninka ugu galmoonin lugaheeda isku dhajinaysaa si uusan u awoodin marka arintaasna waxay noqonaysaa marka arin iyada ay sameynayso maana jinniga iyo shaydaanka sameeynayo xoogaas wax wado oo saas ku qasbayo gabadha inay sameyso waa shaydaanka maskaxda degan ee mukhka degan waaye wali waxa jirta hadda ka hor nin dhalinyaro ah oo mataqaanay aan sheekaysanaya wuxuu leeyahay wuxuu yiri gabadha markii mataqaanay lagu asiibo noocan sixirkan oo kale waxay ninkeeda ay ku leedahay arintan iyada aniga doonisteeda maahan waa khaarijan can daadati waa arin ka baxsan aniga doonisteeda bal mararka qaarkood waxa dhacdo ku leeyahay nin oo carab ah hadda ka hor sheekeeyay xaskaygu arintan oo kale ay ku dhacday aniga waxaan aniga sameeynayo maahan waxa sameeysaa lugahayga iga xir lugna xagga ku xir lugna xagga ku xir inay tiri xitaa xarag igu xir inay tiri xitaa way dhacday oo waa la soo guuriyay inta aan sheekada bilaabin ka hor sidaas markii uu sameeyayna amaliyadii wili ma aysan najixin ayuu leeyahay okay haddana waxay u ishaartay oo ay dhahday bal waayahay haddana cirbad igu dur sababtoo waxaan waxa aniga aan awoodan waxaan aniga celin kara ma ahan waxaan aniga sameyn kara ma ahan cirbad igu dur cirbad markii uu ku turayne markaas ay arintii ay najaxday mar walba u baahan yahay xaaskiisa inuu cirbad uu ku duro oo uu suuxiyo kadib oo uu u tago saas ay uur ku qaaday ay ku dhamaato waay taas waxa la yiraahdaa marka rabtul manac la yiraahdaa gabadha waxyaabaha ku dhici kara waxa kamid ah rabtu taballud wax la yiraahdaa jiro rabtu taballudna waxa waaye isagana jinniga sixirka wado ayaa loo xil saaray ayaa waxa uu degayaa meesha gabadhu ay ka dareemi lahayd kacsiga ay ka dareemi lahayd ayuu degayaa ninkeeda marka uu rabo inuu u tago ayuu waxa uu weysiinayaa dareemihii ayuu weysiinayaa gabadhii ma dareemayso marka wax macaansi ah ma ay dareemayso ninkeedana ma ka maqlayso ma ajiibayso bal waxay noqonaysaa sidii derbigan oo kale ay hortiisa u taagan tahay oo ay noqonaysaa qofkaasna sidoo doon uu ka yeelan karo macnaha qof taagan oo macnaha naf aanay ku jirin oo kale ay ninka hortiisa ay noqonaysaa waaye waxa mataqaanaa dareemo ah halkaasina waxa ka baaba'aya marka manigii saa'ilka ah ama qoyaankii farjiga soo raacay ee fududeynayay galmada ma jiraayo farjigiyaa qalalayo ninka marka inuu iska dhaafo oo uu wahsado
أي أرنتاسين أي نقنيسا وربط التبلد ربط كسدحات وحواي ربط النزيف الله ربط النزيف وحواي كبدا نين كذا مركا أو أبا هذا أو كلية إن أي حد ديجو كيمادو أنت كلام ويفي عنتها كبدا نين كذا مركا أبا هذا ديج شيطان كاكينا جني كاكينا ديجا كل عام وحلا لها مركا ديجا قباميتي كرتين هذا مركي وشاكدي إدماته قبل ديجو كذا قنيسا نبى هذا كور سجن شيء عيدا هاي وعيري حاسكي مركان أوي ما هذا شن بلود لح بلود عن كم غنها مركان بينا أوي ما هذا وحن أركا إذا عادي قبته شن تبري أفرت تبري أن لجوا عادي قبته مركي أن كتجنه يحاول يجي وكقبل سنة سا أو ويضاهي سا صلاة يدنا ويدكن سا مركان تاني وديك شبم واي إذا وحي كم ينتهي نوع سحر كجيني وأديك سيد كم ينتهي نوع فرد وحوايه إن مش رب الحرب gabadha farjigeeda inuu mataqaanaaye la xiro lagu xiraa hilibkaas oo aan laga gudbi karin jinniga sameeynaya waxa soo kale wal billah ninka marka uu rabo inuu u tago xaaskiisa waxa uu arkaya meesha dhanba in ay xiran tahay hilib lagu ooday oo lagu xiray marka uu rabo in uu ka gudbana ma ka gudbi karo wax walba hadii uu sameeyo awood ba hadii uu isticmaalo ma ka gudbi karo iyadana waa nooc ka mid ah rabtiga waxa la yiraahdaa rabtul insidaad nooca shanaad ee u dambeeya waxa waaye ربط التغوير اليرا ربط التغوير كحوايه نينكا ayaa waxa uu guursanaya gawar bikra ah ayuu guursanaya gabadha bikrada marka uu guursado ayuu waxa uu helaya gabadhii inay gabar guur soo martay oo kale inay tahay ayuu helaya wuu ka shakinaya marka shakiya galaya ninka adiga gabar soo guursatay gabar ma soo guursatay mise garooba soo guursatay ninka shakiya galayo laakiin arintaas iyada ah markii sixirka la ibtaaliyo oo quraanka sixirka lagu aqriyo ayaa waxa dhacayso gabadhii inay u soo noqoto bikradii daboolkeeda ay u soo noqoto sidii ay aan jirtay kaliya waxa ka dhigay bikra la'aanta oo sidii inay garoob tahay waxa ka dhigay waxa waaye jinniga ayaa waxa uu u tusaaleenaya ninka inay gabadhaani aanay bikra ahayn marka insha Allah taala barnaamijkan hadda aan sheegnay cilaajkiisa baartituun u sameyn doonaa baartituun kaga hadli doonaa insha Allah cilaajkiisa laakiin shanta nooc uu qaybsama waxaana la yiraahdaa sixirkan waxa la yiraahdaa magaciisa سحر المعقود عن زوجته قفك مركز ناكتيسا لغا حرو ايا ليرادا ان شاء الله تعالى بارتتو ايان وحينو كغا هدلي دونا قيبها علاجك iyo waxyaabaha loo baahan yahay insha Allah bidin ilbaari hadii aad daawatay oo barnaamijka ku anfacayne kaliya ha isku ekeysiinin la wadaag walaalkaaga ama walaashaada muslimada si uu u gaara dhammaan inta muslimiinta insha Allah ta'ala inta aynu dib u kulmi doonaan waa aniga macallin Musa wadin leh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته